sheekadu waxay ka bilaabanaysaa jawi cabsi leh oo ka jira magaalada qadiimiga ah ee Dingzhou. habeen madow oo ay dabaylu dhacayaan wadooyinka magaaladuna ay haawanayaan ayaa si lama filaan ah waxaa soo baxay nin farayaamo ah oo ordaya. ninkan wuxuu u ordayaa si waali ah sidii qof ay geeridu eryanayso. wuxuu eegayaa gadaashiisa, indhihiisana waxaa ka muuqda argagax sayda. wuu isoo gaarayaa ayuu hoos u leeyahay isagoo turunturoonaya. si kedis ah wuxuu u galay luuq mugdi ah, balse nasiib darro halkaas ayay naftu kaga baxday. meydkiisa oo yaala dhulka ayaa waxaa arkay nin tuugsade ah oo hal il keliya leh. tuugsadahaasi naxdin darteed ayuu qayliyey wuuna cararay isagoo gariiraya. daqiiqada kadib waxaa goobta soo gaaray nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo Shiye. waa wiil qurux badan laakiin isla weyn. wuxuu arkay ninka dhulka yaala wuxuuna si taxadar leh u taabtay ninkii dhintay si uu u hubiyo inuu nool yahay. gacmihiisa ayuu dhiiggii soo raacay. isla wakhtigaas saxda ah waxaa luuqa soo maray nin waardiye ah oo sitay faynuus. waardiyihii markuu arkay Shiye oo gacmaha dhiig ku leh iyo meydka hor yaala ayuu faynuuskii tuuray oo qaylo dhaan bilaabay. gacan ku dhiig leh. Shiye ayaa dad dilay. dadkiinay soo baxa, wiilka guddoomiyaha ayaa dad laayay. war wanaagsan iyo war xun ayaa jira. warka wanaagsan waa in Shiye uu yahay wiilka keliya ee guddoomiyaha magaalada, sidaas darteed aabbihiis xabsiga ma dhigayo. laakiin warka xun wuxuu yahay dadka magaalada Dingzhou oo dhan ayaa aaminsan inuu isagu yahay gacan ku dhiig laha. sababtu maxay tahay? Shiye taariikh madow ayuu ku leeyahay magaalada. waa nin kibir badan oo mar walba fardaha ku dhex erya suuqa dadkana dhibaateeya. inkasta oo uusan ahayn nin qalbi xun oo dadka dila, haddana waa nin lacagtiisa ku faana. waxaa la soo xasuusanayaa dhacdo dhacday maalmo ka hor ninka dhintay ee faryamaha ah iyo Shiye ayaa suuqa ku dagaalamay. Shiye ayaa burburiyey alaabtii nijaarka wuxuuna ku yidhi, haddii lacagtu ay wax walba xalinayso, sow ma ahan inaan dhirbaaxo idinku dhufto kadibna aan lacag idin siiyo. dadkii suuqa joogay ayaa habaaray Shiye, nijaarkiina wuxuu ku dhaartay in Ilaahay ciqaabi doono. marka dadka magaaladu waxay isku xidheen dhacdadaas iyo meydka xalay la helay. waxay leeyihiin waa uu hanjabay wuuna fuliyey. laakiin arrintu intaas kuma eka. isla habeenkii uu dilku dhacay waxaa magaalada Dingzhou ka dhacay mucjiso rabaani ah oo argagax leh. cirka sare ee magaalada waxaa ka soo muuqday magaalo kale. waa muuqaal dhalanteed ah. sida caadiga ah dhalanteedku wuxuu socdaa muddo yar, laakiin magaaladan cirka ku laalmimaysa waxay hawada ku jirtaa muddo 3 maalmood ah oo xiriir ah. dadka deegaanku waxay aaminsan yihiin in tani ay tahay calaamad xun oo muujinaysa in Ilaahay ka carooday dembiyada Shiye iyo aabbihiis. shacabkii oo caraysan ayaa ku soo xoomay xafiiska guddoomiyaha iyagoo dalbanaya in wiilka la dilo. si uu isaga fogeeyo eedaynta, Shiye wuxuu go'aansaday inuu baadi goobo ninkii tuugsadaha ahaa ee isha keliya lahaa, kaasoo ah qofka keliya ee markhaatiga ka ah inuusan wax dilin. laakiin tuugsadahii waa la waayey. sidaas darteed Shiye wuxuu isqariyey wuxuuna aaday meel khatar ah oo la yidhaahdo guriga martida ee Qingfang. halkan ma ahan hudheel caadi ah, waa xarunta ay isugu yimaadaan calooshood u shaqaystayaasha, dilaaga iyo dadka khatarta ah. Shiye wuxuu miiska soo saaray lacag aad u badan wuxuuna ku dhawaaqay, qofkii ii keena tuugsadaha isha keliya leh waxaan siinayaa 1,000 xabo oo dahab ah. isla wakhtigaas waxaa magaalada soo galay koox kale oo xiiso leh. waxaa hogaaminaysa gabar aad u adag oo indho fiiqan, magaceedana la yidhaahdo Xin Qiyan. gabadhan waa ugaarsato madax badan, waxayna soo qabatay dembiile baxsad ah oo ay silsilado ku xirtay. laakiin wax la yaab leh ayaa dhacay. markii Xin Qiyan iyo kooxdeedu ay magaalada soo galeen, qofna wax kama iibinayo. xataa gabadh yar oo rooti iibinaysa ayaa diiday inay wax ka iibiso. Xin Qiyan ayaa lacag u taagtay gabadhii yarayd waxayna tidhi 7 xabo oo rooti ah isii. gabadhii yarayd ayaa lacagtii qaadatay, laakiin rooti ma dhiibin. gacmaha ayay kor u taagtay sidii iyadoo wax dhiibaysa, waxayna tidhi, waa kanaa rootigii qaado. aawey ayay tidhi Xin Qiyan. sow ma aragtid? waa rootiga dadka sharafta leh, dadka xunna ma arki karaan, ayay gabadhii yarayd ugu jawaabtay si jees ah. sababta dadku u necab yihiin Xin Qiyan waa in iyada iyo kooxdeedu ay raadinayaan nin la yidhaahdo Ye Shao. Ye Shao waa tuug caan ah, laakiin dadka deegaanku waxay u arkaan geesi u gargaara dadka fuqarada ah, kana xaddi dadka taajiriinta ah sida Shiye. sidaas darteed magaalada oo dhan waxay difaacayaan Ye Shao, waxayna necab yihiin cid walba oo isku dayda inay qabato. laakiin Xin Qiyan dan kama lahan jacaylka dadweynaha. waxay leedahay hadaf gaar ah. 8 sano ka hor qoyskeeda waxaa laayay burcad, waxayna xasuusataa in ninkii hogaaminayay uu lahaa calaamad gaar ah, suniye kala goon. ninka Ye Shao la yidhaahdana waxaa la sheegay inuu leeyahay isla calaamadaas. sheekadu hadda waxay yeelatay weji cusub. Shiye wuxuu raadinayaa badbaado. Xin Qiyan waxay raadinaysaa argudasho. magaalada Dingzhou waxaa dul hoganaya daruuro madow iyo magaalo dhalanteed ah. Xin Qiyan waxay tagtay guriga qoyska Gu, halkaas oo uu Ye Shao dhowaan wax ka xaday. markii ay guriga gashayba waxay maqashay ay hindhisaya. hindhiso ayay isweydiisay. tani waxay u muuqataa mid fudud, laakiin waxay fure u noqon kartaa sir weyn oo qarsoon. dib aan ugu laabanno guriga qoyska Gu, halkaas oo gabadha ugaarsatada ah ee Xin Qiyan ay ka wado baaritaan cajiib ah. sida aan ognahay, Xin Qiyan waxay ka soo jeedaa qoys ugaarsato ah, sankeeda iyo dareenkeeduna waa mid ka itaal roon dadka caadiga ah. waxay jilbo jabsatay dhulka, waxayna sankeeda u dhaweysay raad kabo oo uu ka tegay Ye Shao. si lama filaan ah, indhaheeda ayaa iftiimay. urtaan waa saliidda geedka kaafuurka ayay hoos u tiri. sidee ayay saliidda kaafuurka ula xiriirtaa tuuggan? Xin Qiyan maskaxdeeda ayaa si degdeg ah u shaqaysay. Ye Shao waa nin ku socda saqafka guryaha. guryaha magaalada Dingzhou, gaar ahaan kuwa daawada sameeya, waxay saqafkooda ku leeyihiin daloolo uumi bixiye ah. marka daawada la karinayo, uumiga saliidda leh wuxuu ku dhigaa saqafka. laakiin halkan waxaa ah sirta. Xin Qiyan waxay ogaatay in urtu ay tahay mid cusub. tani waxay ka dhigan tahay inuu soo maray saqafka farmashiye cusub. haddii aad khariidada magaalada fiiriso oo aad xariiq toosan ka soo qaado guriga qoyska Gu ilaa farmashiyaha cusub ee ku yaala luuqa Tunfeng, waxay ku tusinaysaa jihada uu baxsaday Ye Shao. Xin Qiyan waxay dhoola caddaysay. waan ku hayaa. waxay xisaabisay in Ye Shao uu ku dhumaalaysanayo inta u dhaxaysa luuqa Tunfeng iyo derbiga magaalada. caawa halkaas ayay u dhiganaysaa dabino si ay u qabato ninkan ay aaminsan tahay inuu dilay saaxiibadeed.
aan ka soo tagno gabadhaas iyo xisaabteeda oo aan eegno dhanka kale. dad badan ayaa isweydiinaya yaa waaye Ye Xiao. muxuu u caawiyaa dadka fuqarada ah? muuqaalku wuxuu ina geynayaa suuqa qudaarta. waxaan arkaynaa nin iibiya rootiga iyo qudaarta oo la yidhaahdo Liu. waa nin miskiin ah oo ay dadku jecel yihiin. laakiin markii uu guriga ku laabtay wuxuu iska bixiyey dharkii miskiinnimada. gurigiisa waxaa jooga gabadhiisa yar ee Tun iyo hooyadiis oo indhoole ah. habeennimadii Tun ayaa u baxday inay soo iibiso saliidda laambadaha. si lama filaan ah waxaa mugdiga kaga soo booday nin xiran dhar madow, maaskaro iyo sunniye kala go'an. waa Ye Xiao. ninkii wuxuu weeraray gabadha yar. Tun ma ahan gabar caadi ah, way dagaalantay, haraati iyo feer ayay kala daashay, laakiin ninka ayaa ka xoog batay. markii ay dhulka ku dhacday, ninkii ayaa wejiga iska qaaday. argagax. waa aabbaheed, Liu. aabe ayay tiri Tun oo naxsan. maxaad ii weeraraysaa? Liu wuxuu yidhi, markaad dhimanayso, cadowgaagu kuma siinayo fursad. waa inaad mar walba diyaar ahaataa. sababta uu aabbuhu sidan u samaynayo waa mid murugo leh. wuxuu hayaa sir culus. 4 sano ka hor, Liu wuxuu ahaa askari. isaga iyo 2 saaxiibadiis ah ayaa loo diray inay soo helaan xero qarsoodi ah oo ay ku jiraan mucaaradka. waxay heleen xeradii, laakiin gabadh askariyad ah oo la socotay, taasoo magaceeda la yidhaahdo Lin Han ayaa khiyaantay. Lin Han waxay dishay saaxiibkood, Liu keliya ayaa dirqi ku badbaaday. ka hor inta uusan saaxiibkii dhiman, wuxuu Liu ku aaminay biyo haye ay ku xardhan tahay khariidad muujinaysa magaalada Erka, isla magaalada hadda ka dul muuqata Dingzhou. hadda Liu wuxuu ogaaday in gabadhii khiyaantay Lin Han ay magaalada soo gashay iyadoo wadata ciidanka gaarka ah ee Jianji. Liu wuxuu go'aansaday inuu caawa aado oo uu dilo Lin Han xitaa haddii ay naftiisa ku baxayso. sidaas darteed ayuu gabadhiisa u tababarayay si ay isu difaacdo marka uu dhinto. isagoo xiran dharkiisii dagaalka kuna hubaysan waran duugoobay, Liu wuxuu u baxay dhanka luuqa Runfeng. laakiin nasiib darro, halkaas waxaa ku sugaya Xin Qiyan iyo dabinkii ay u dhigtay. inta ay Xin Qiyan iyo Ye Xiao isku soo fool leeyihiin, aan eegno maxbuuskii ay Xin Qiyan soo qabatay ee Cao Shen. ninkan waxaa loo haystaa inuu qarxiyey biyo xireen weyn. Xin Qiyan waxay ku kalsooneyd inuusan baxsan karin, waxayna ilaalintiisa kaga tagtay walaalkeed ka yar. laakiin Cao Shen ma ahan nin doqon ah. waa khabiir ku takhasusay kiimikada iyo qaraxyada. markii uu arkay in Xin Qiyan ay baxday oo wiilkii yaraa uu hurdo hayso, ayuu suunka shimbiraha kala soo baxay budo qarsoon. wuxuu isku daray budadii wuxuuna afka ku qabsaday maro qoyan. wuu afuufay. qiiq cad ayaa qolka qabsaday. walaalkii Xin Qiyan isla markiiba dhulka ayuu ku dhacay isagoo suuxsan. Cao Shen wuxuu adeegsaday qarax yar oo aamusnaan ah si uu silsiladda gacmaha iskaga jabiyo. wuu baxsaday. bannaanka magaalada, Cao Shen waxaa ku sugayay gaari faras iyo gabadh caawiye u ah oo la yidhaahdo Yun Niang. labadoodu waxay aadeen guri qarsoon oo ku yaala geeska magaalada. markii ay gudaha galeen, waxaa noo soo baxay shirqoolka ugu weyn ee abid soo mara magaalada Dingzhou. guriga hoostiisa waxaa laga qoday godad dhaadheer oo isku xiran. rag wejiyada duubtay ayaa godadkaas ka shaqaynaya. mid ka mid ah raggaas ayaa Cao Shen u sheegay, mudane, godadkii waan dhammaynay. waxaan si toos ah ugu xirnay webiga magaalada mara. hadda waxaa dhiman keliya inaan qarxino meelaha biyuhu ka soo galayaan. Cao Shen wuxuu eegay saacadda wuxuuna yidhi erayo dhiigga kugu kicinaya. aad bay u wanaagsan tahay. caawa saacadda marka ay tahay 3 habeennimo waan qarxinaynaa. biyaha webiga ayaa ku soo butaaci doona godadka, waxayna soo dumin doonaan magaalada oo dhan. qorshuhu waa cad yahay, waxay rabaan inay Dingzhou ka dhigaan badweyn, dadka oo dhan oo hurdayana ay ku dhintaan biyaha hoostooda. halka Xin Qiyan ay eryanayso Ye Xiao iyo Xie Jintang uu raadinayo tuugsadaha, magaalada oo dhan waxaa ku soo fool leh masiibo aysan ka warhayn. aan dib ugu laabanno qorshaha waalida ah ee Cao Shen. ninkani ma ahan dembiile caadi ah, waa maskax dajiye. waxaan ogaanay in aabihiis Cao Jianda uu xabsiga ku jiro, lana qorsheeyey in magaalada oo dhan la qarxiyo si biyaha webiga ay u qaadaan. laakiin Cao Shen wuxuu leeyahay qorshe ka duwan kan aabihiis. isagu ma rabo in dadka shacabka ah ay dhintaan. wuxuu rabaa inuu badbaadiyo aabihiis isla markaana uu badbaadiyo magaalada. tani waa shax adag oo u baahan in dhowr dhinac laga ciyaaro. kooxda qaraxda wadda waa naftood hurayaal u daacad ah aabihiis. haddii Cao Shen uu isku dayo inuu joojiyo, way dili doonaan. haddii uu booliiska u sheego, aabihiis ayaa la dili doonaa. sidaas darteed, Cao Shen wuxuu dejiyey qorshe la yaab leh oo 5 weji ah. wejiga koowaad, afduubka wiilka guddoomiyaha. habeenkii madooba, Xie, wiilkii taajirka ahaa, ayaa isku dayay inuu magaalada ka baxsado isagoo saaran gaari faras si uu uga badbaado cadhada dadweynaha. laakiin darawalka gaariga wada ma ahan shaqaalihiisii, waa Cao Shen oo isbedelay. Cao Shen wuxuu gaariga ku dhex tuuray qiiq suuxin ah. Xie iyo shaqaalihiisii isla markiiba way suuxeen. markii dambe waxaa gaariga laga helay warqad ay ku qoran tahay, haddii aad rabtaan wiilkiina 20,000 oo dahab ah, keena macbadka magaalada. waraaqda waxaa ku saxiixan Ye Xiao. halkan fiiri sirtan, Cao Shen wuxuu dembiga dusha u saaray Ye Xiao si uu u jahwareeriyo booliiska. wejiga labaad, dabin gudaha. guddoomiyaha magaalada wuxuu u yeeray Lin Han, taliyaha ciidanka Jianji. wuxuu ka codsaday inay wiilkiisa soo badbaadiso. Lin Han waa haweeney aad u maskax badan. way og tahay in tani tahay xeelad lagu baxsanayo xabsiga. sidaas darteed, Lin Han ma aadin macbadka. waxay dharkeeda u xirtay askar caadi ah, waxayna askartii caadiga ahayd u xirtay dharkii ciidanka Jianji si ay u aadaan macbadka. iyadu waxay go'aansatay inay sii joogto xabsiga oo ay ilaaliso maxbuuska muhiimka ah, Cao Jianda. wejiga saddexaad, weerarka habeennimo. laakiin Cao Shen wuu ogaa in Lin Han aysan bixi doonin. wuxuu sii ogaa in Ye Xiao Liu Guanying uu caawa soo weerari doono Lin Han si uu uga aarguto dilkii saaxiibkiis. isla waqtigii loogu talagalay, Ye Xiao wuxuu soo weeraray xarunta. dagaal qaraar ayaa dhex maray isaga iyo Lin Han. wejiga afraad, soo gelitaanka ugaarsatada. halkan waxaa ah qaybta ugu cajiibsan qorshaha Cao Shen. xasuusnow, Cao Shen wuxuu horay isugu dhiibay gabadha ugaarsatada ah ee Xin Qiyan. wuxuu ogaa haddii ay magaalada timaado inay dabagal ku samayn doonto Ye Xiao. marka caawa markii Ye Xiao la weeraray, yaa soo gurmaday? waa Xin Qiyan. sababtoo ah Xin Qiyan ma ogola in Barey uu qof kale dilo.
hadda linhan iyo ciidankeedii waxay ku mashquulsan yihiin dagaal culus oo laba dhinac ah Ye Shao iyo Xin Qian. xabsigu waa bannaan yahay. inta dagaalku socdo Cao Sheng wuxuu galay godkii qarsoodiga ahaa ee ay gabadha Yun Niyang qodaysay bilooyin. wuxuu si toos ah u tagay derbiga xabsiga hoostiisa. qarax weyn ayaa derbiga xabsiga dumiyey. qiiq iyo uur ku taallo ayaa meesha qabsaday. Cao Sheng wuxuu gudaha u galay qolka aabihiis. aabe aan baxno ayuu yidhi Cao Sheng. laakiin aabihiis Cao Jianda kuma farxin. wuxuu yidhi doqon yahow, ma og tahay inaan doonayay inaan halkan ku dhinto si aan u qaato dembiga biyaha magaalada qaadi doona. Cao Sheng wuu dhoola cadeeyey hawalwelin aabe. biyahaas cidna ma dili doonaan. sidee buu u joojiyey qaraxii magaalada? tani waa qaybta ugu qosolka badan. Cao Sheng iyo Yun Niyang waxay adeegsadeen xeelad kale. Yun Niyang waxay iska dhigtay tuugsadahii isha keliya lahaa ee la raadinayay. waxay dhammaan tuugsatooyinkii magaalada u kaxaysay guriga ay ku dhumaalaysanayaan naftood hurayaasha qaraxa wada. tuugsatooyinkii markay yimaadeen waxaa soo raacay ugaarsatooyinkii abaalmarinta raadinayay. ugaarsatooyinkii markay yimaadeen waxaa soo raacay booliskii raadinayay wiilka guddoomiyaha. si lama filaan ah gurigii qarsoodiga ahaa ee naftood hurayaasha waxaa soo galay boqolaal qof oo isugu jira tuugsato, boolis iyo dad shacab ah. naftood hurayaashii waxay u qaateen in qorshahoodii la fashiliyey oo la soo weeraray. waana heleen. howlgalkii wuu fashilmay ayuu yidhi hogaamiyahoodii. intii ay isdhiibi lahaayeen dhammaantood way isdileen isumeeyeen si aan sirta loo helin. sidaas ayuu Cao Sheng ku badbaadiyey magaalada Dingzhou isagoon xabad ridin. waa xeelad dhab ah. dib aan ugu laabanno dagaalka. Ye Shao iyo Xin Qian way daaleen. ciidanka Jianji way badan yihiin, Linhanna waa dagaalyahanad awood badan. waxay u muuqataa inay labadooduba dhimanayaan. falaarihii Xin Qian waa ka dhammaadeen. Ye Shao dhaawac ayaa soo gaaray. si lama filaan ah waxaa meel fog laga maqlay foodhi. waa walaalkii Xin Qian wiilka la yidhaahdo Xin Hou. markii uu hurdadii ka soo kacay oo uu arkay in walaashiis maqan tahay, Cao Sheng-na baxsaday wuxuu qaatay qaansadiisa iyo leebkiisa. hadda wuxuu soo galay goobta dagaalka isagoo raba inuu walaashiis badbaadiyo. saddex geesi, tuuga, gabadha ugaarsatada ah iyo walaalkeed ayaa hadda wajahaya ciidanka naxariista daran ee Jianji. miyay badbaadi doonaan? dib aan ugu laabanno goobta dagaalka ee bannaanka xabsiga. xaaladdu waxay ahayd mid quus ah, laakiin miisaanka dagaalka ayaa isbedelay. Xin Qian oo dhimasho qarka u saaran ayaa si lama filaan ah u maqashay cod weyn oo leh, ha taaban walaashay. waa Xin Shin walaalkeed ka yar. inkastoo uu u muuqdo nin safiil ah oo maskaxdiisu yara liidato, haddana waa nin hilib leh ah. wuxuu qabtay askarigii Jianji ee walaashiis dili rabay, wuxuuna u tuuray sida carruurtu dhagxaanta u tuuraan. dhanka kale Ye Shao tuuga halyeyga ah waxaa soo caawisay gabadh yar oo dhar madow xiran. waa gabadhiisii Tun. gabadhan yar inkasta oo ay carruur tahay, haddana waxay u dagaalamaysaa sida libaaxad iyadoo aabbaheed garab taagan. laakiin dagaalku wuxuu istaagay si lama filaan ah. dhulka ayaa gariiray. tallaabooyin culus ayaa soo dhowaaday. mugdiga waxaa ka soo baxay nin weyn oo xiran dhar bir ah iyo koofiyad bir ah. waa ninka birta ah. ma ahan askari caadi ah. waa bahal bini aadam u eg. askarigii ugu horreeyey ee Jianji ayaa isku dayay inuu hor istaago. ninka birta ah gacan keliya ayuu u taagay. gacantiisa ayaa si toos ah u dhex martay laabta askariga, wadnaha ayuuna kala soo baxay. argagax. dadkii dagaalamayay oo dhan, Ye Shao, Xin Qian, Linhan way naxeen. tani ma ahan awood bini aadam. Linhan oo ah taliyaha ciidanka ayaa isku dayay inuu ninkan celiyo. wuxuu la dhacay seeftiisa. laakiin seeftii waxay ku jabtay birta ninka. ninka birta ah ayaa farta ku bitay Linhan wuxuuna u tuuray meel fog sidii qashinka. ninka birta ah cidna ma fiirin. wuxuu si toos ah u aaday qolka xabsiga ee uu ku jiro Cao Jianda, aabbaha qaraxa waday. markii uu u galay, Cao Jianda kama nixin. wuu dhoola cadeeyey wuxuuna yidhi erayo yaab leh. waan ogaa inaad imaanayso. dhammaadku waa bilow, bilowguna waa dhammaad. isha ayaa laysku qabtay. ninkii birta ahaa iyo Cao Jianda way wada baxeen. meeshii ay joogeen waa haawanaysaa. ma dhimasha? ma sixir baa? ayay isweydiiyeen. magaalada Dingzhou waxay ku waabariisatay aamusnaan iyo jahwareer. dhalanteedkii mirage cirka ka muuqday wuu dhumay. laakiin waxaa jirta masiibo kale. 100 qof oo shacab ah ayaa xalay la waayey, cidna ma garanayso meel ay aadeen. ugaarsatada Xin Qian iyo walaalkeed Xin Shin waxay ku laabteen hoteelkii. way wareersan yihiin. Xin Shin wuxuu yidhi, walaale, ninkii qaraxa watay Cao Sheng wuxuu haystay baaruud. muxuu nooga baxsan waayey intaan jidka ku soo jirnay? muxuu sugay intaan magaalada imaanayno? su'aashaas waa mid maskax leh, laakiin jawaab looma hayo. dhanka kale Ye Shao iyo gabadhiisa Tun waxay iska dhigeen dad aan waxba ogeyn. subaxdii horeba suuqa ayay tageen, waxayna bilaabeen inay iibiyaan rooti iyo qudaar sidii iyagoo aan xalay dagaal dhiig ku daatay ku jirin. waa isqarin heer sare ah. aan eegno wiilkii taajirka ahaa Shiye. xalay markii la afduubtay, gaarigii faraska ayaa jidka looga tegey. markii uu miirkiisa soo laabtay, wuxuu arkay tuugsadahii isha keliya lahaa oo cararaya. Shiye wuu eryaday tuugsadaha ilaa uu ka gaaray guri burbursan oo ay tuugsatooyinku degaan. inkastoo tuugsadahii uu ka baxsaday, haddana Shiye wuxuu guriga dhexdiisa ku arkay waxyaab leh. derbiga waxaa ku sawiran sawir gacmeed qadiimi ah. markii uu sawirkaas arkay, indhihiisa ayaa nanxay. sawirkaas wuxuu hayaa furaha sirta magaalada. hadda ma sheegayno waxa uu yahay, waayo waa mucjiso. isla markiiba Shiye Jintang wuxuu aaday hoteelka Qingfang wuxuuna soo dejiyey warqad cusub oo abaalmarin ah. qofkii ii keena nin awood u leh inuu laabta dadka gacanta geliyo ninka birta ah, waxaan siinayaa lacag kasta oo uu rabo. bannaanka magaalada waxaa yaala mayd. waa maydkii Cao Jianda, aabbaha. sida muuqata ninkii birta ahaa wuu dilay, kadibna maydka ayuu soo tuuray. Linhan taliyaha Jianji ayaa maydka qaatay wuxuuna saartay gaari faras isagoo u wada meel cidla ah. wiilka dhintay dhalay Cao Sheng iyo gabadha Yun Niyang ayaa soo dabagalay. waxay aaminsan yihiin in Linhan uu yahay cadowga dilay aabbahood. Yun Niyang ayaa weerartay Linhan. dagaal gacanka hadal ah ayaa dhex maray. intii dagaalku socday, shaarkii Linhan ayaa jeexmay. gacantiisa waxaa ku yaala tato, calaamad la yaab leh. Cao Sheng wuu qayliyey joojiya. wuxuu gartay calaamadaas. waa calaamadii ururka aabihiis.
naxdin weyn. Linhan ma ahayn cadow. Wuxuu ahaa basaas u shaqeeya aabihiis Cao Jianda. Sanado badan ayuu ku dhex jiray ciidanka dowladda si uu u caawiyo odayga. Linhan wuxuu u sheegay Cao Sheng, aabbaha aniga ma dilin. Waxaa dilay ninka birta ah. Waxaan meydka u waday inaan si sharaf leh u aaso. Kadib wuxuu raaciyay, hadda waxaan aadayaa inaan soo helo ninkaas. Linhan wuxuu maqlay in Xie Jintang uu raadinayo ninka dadka laabta ka dila. Wuxuu gartay in wiilka taajirka ah uu wax og yahay. Habeennimadii Linhan wuxuu u dhacay qolkii Xie. Wuxuu eejiyey wiilkii wuxuuna ku yidhi cod qabow. Ii sheeg waxaad og tahay, haddii kale nafta ayaan kaa jarayaa. Sheekadu hadda waxay gashay weji cusub. Yaa waaye ninka birta ah. Sawirka uu arkay Xie Jintang muxuu ahaa? Iyo maxay tahay awoodda dadka laayaysa? Markii Linhan iyo Xie ay daaqadda ka boodeen, Xin Qiyan way aragtay. Waa kana ninkan raadinayay ayay tiri iyadoo ka daba booday. Isla waqtigaas Yun Niang ayaa soo gashay qolkii waxayna tuurtay mindi. Mindidii waxay ku dhacday garabka Xin Qiyan. Dhiig ayaa daatay. Xin Qiyan way xanaaqday waxayna qabatay Cao Sheng iyadoo mindi qoorta ka saartay. Dhaqaaq haddaad rabto inaad dhimato. Laakiin Cao Sheng ma cabsan. Wuxuu gacanta u taagay Yun Niang si ay u joojiso weerarka. Waan wada shaqayn karnaa ayuu yidhi Cao Sheng. Dhammaanteen waxaan raadinaynaa hal shay, ninka birta ah. Dhammaan kooxdii Xie, Linhan, Xin Qiyan, Cao Sheng, Yun Niang waxay isugu yimaadeen meel qarsoodi ah. Xie wuxuu soo saaray sawirkii uu ka soo qaaday guriga tuugsadaha. Sawirka waxaa ku yaala gacan dadka laabta ka soo baxaysa iyo xariiq tilmaamaysa daaqad. Waan gartay ayuu yidhi Xie. Tuugsadaha wuxuu arkay ninka birta ah oo irka aadayo. Kooxdu waxay isla garteen in magaalada irkar aysan ahayn dhalanteed. Waa magaalo dhab ah oo duulaysa. Waxay go'aansadeen inay aadaan meesha ay magaaladaas ku degto marka aysan hawada ku jirin. Meeshaas waxaa la yidhaahdaa harada muraayada. Markii ay gaareen harada muraayada waxay arkeen wax la yaab leh. Haradii way qalalay. Biyihii waa la waayay, dhulkana waxaa ku yaala raad weyn oo ah qaabka magaalo dhan. Cao Sheng wuxuu yidhi magaaladu waa ufo qadiimi ah. Halkan ayay ku degtay, biyihiina way nuugtay. Intii ay baaritaanka ku jireen waxaa hareereeyay ciidan. Waa ciidanka gobolka laakiin ciidankani ma ahan kuwa caadiga ah. Ye Shao, Liu Guanying oo kooxda la socday ayaa arkay calaamad wejiga askarta kaga taal. Kuwani waa maxaabiis ayuu yidhi. Waa ciidan sharci darro ah oo la soo diray si ay noo dilaan. Kooxda waxaa loo kaxeeyey xabsiga Dingzhou. Laakiin nasiib wanaag xabsigan waxaa maamula aabbaha Xie Jintang. Xie wuxuu askartii ku yidhi, kuwani waa martidayda. Qolalka u fura, shaahna u keena. Xabsigii wuxuu noqday guri marti. Xie Jintang wuxuu arkay dhaawaca garabka Xin Qiyan. Wuxuu soo qaatay sanduuqiisii daawada. Ii ogolow inaan ku daweeyo ayuu yidhi. Xin Qiyan way ka shakiday. Dadka magaalada waxay sheegaan in Xie uu dadka ku dilo daawadiisa. Laakiin Xie ayaa sheekada dhabta ah u sheegay. Ninkii dhintay aniga ma dilin. Wuxuu cabbay khamri isagoo daawo qaraar wata. Anigu waxaan isku dayay inaan badbaadiyo, laakiin ehelkiisa ayaa iga been sheegay si ay lacag iiga qaataan. Xin Qiyan waxay aragtay inuu run sheegayo. Waayahay ayay tiri. Markii uu nabarka u dhayay, kooxdu waxay noqotay mid isku xiran. Waxay wadaageen cunto iyo qorshe. Hadda dhammaantood waxay leeyihiin hal hadaf, inay galaan magaalada duulaysa marka xigta ee ay soo degto si ay u soo helaan dadkii la afduubtay iyo walaalkii Xin Qiyan. Dib aan ugu laabano guriga Xie. Wiilkan taajirka ah maanta nasiib xumo ayuu la kulmay. Markii uu gurigiisa ku laabtay si uu bustayaal ugu soo qaado martidiisa xabsiga ku jirta, wuxuu arkay wax uusan filanayn. Xaaskiisa iyo saaxiibkiis Gu Gongji ayaa sariirta ku wada jira. Xie wuu gubtay, laakiin sharafkiisa darteed ma uusan rabin inuu ceebtiisa bannaanka soo dhigo. Waxba ma dhihin, wuxuuna isaga soo baxay guriga isagoo qalbi jabsan. Markii uu xabsiga ku soo laabtay, wuxuu asxaabtiisa cusub ka codsaday hal shay. Ma ii dili kartaan hal qof? Dhammaantood way diideen. Xin Qiyan, anigu ugaarsato ayaan ahay, dilaa ma ihi. Ye Shao, anigu tuug ayaan ahay, dilaa ma ihi. Xie wuu iska aamusay, wuxuuna go'aansaday inuu diiradda saaro hawsha ka weyn magaalada irka. Kooxdu waxay isla garteen hal qorshe, maadaama magaalada duulaysa ay leedahay derbi adag, waa inay adeegsadaan madaafiic qadiimi ah oo taal xarunta dowladda si ay xarig ugu ridaan derbiga magaalada kadibna ay kor ugu fuulaan. Intii ay qorsheynayeen, shakigii u dhexeeyey Cao Sheng iyo Ye Shao ayaa sii xoogaystay. Cao Sheng wuxuu og yahay in Ye Shao uu yahay ninkii aabihiis Cao Jianda la shaqayn jiray waqti hore. Sidaas darteed Cao Sheng wuxuu isku dayay inuu tijaabiyo Ye Shao. Wuxuu u diray inuu soo qaado madaafiicda culus. Laakiin Ye Shao Liu ma ahan nin sahlan. Wuxuu gartay in la tijaabinayo. Wuxuu si farsamaysan uga baxsaday dabinkii isagoo gurigiisa aaday. Markii uu guriga gaaray, wuxuu arkay in sanduuqiisii sirta ahaa la furtay. Waa la ibaaray ayuu hoos u yidhi. Labadooduba Cao Sheng iyo Ye Shao hadda way is ogaadeen, laakiin midna ma rabo inuu kan kale fashiliyo, waayo waxay u baahan yihiin iskaashi. Kooxdu waxay mar kale tageen harada muraayada, halkaas oo ay magaalada irka mar kale ku soo degtay. Laakiin markan dhib kale ayaa jira. Derbiga magaalada waxaa ku wareegsan gaashaanka tamarta. Waxba ma mari karaan. Xataa tuufuujiyada ragga dhulka qoda way ku fashilmeen inay dhulka hoostiisa ka qodaan, waayo dhulku waa bir. Si lama filaan ah, koox dhar madow xiran ayaa weerar ku soo qaaday. Dagaal culus ayaa dhacay. Ye Shao wuxuu adeegsaday ushiisa si uu isaga difaaco. Xin Qiyan ayaa aragtay dhiig ka daaya gacanta Ye Shao. Waxay shaki gashay, kani ma ahan dhaawac caadi ah, waa dhaawacii aan ku dhuftay habeenkii hore. Markii dagaalku qaboobay, Ye Shao wuxuu sameeyey xeelad degdeg ah. Wuxuu gacantiisa ku gubay dab si uu u qariyo dhaawaca dhabta ah. Waa ku gubtay ayuu yidhi isagoo qarinaya sirtiisa. Dhibaatada kale ee jirta waa Cao Sheng. Ninkani wuxuu leeyahay cudur la yaab leh. Wuxuu dhacaa hurdo waqtiyada ugu muhiimsan. Markan wuxuu hurday saacaddan. Marka uu soo kaco, wuxuu dareemayaa firfircooni, laakiin hurdadiisu waxay noqonaysaa mid sii dheeraata marba marka ka dambaysa. Habeenkii, kooxdu waxay dib ugu soo laabteen magaalada Dingzhou iyagoo jiidaya madaafiicdii weyneyd. Markii ay irida magaalada gaareen, waxay arkeen dhacdo naxdin leh.
boqolaal qof oo la waayay maalmihii la soo dhaafay ayaa si lama filaan ah u soo laabtay. laakiin dadkani caadi ma ahan. waxay u socdaan sida zombiska. indhahoodu waa bannaan yihiin. cidna ma aqoonsanayaan. Ye Shao wuxuu arkay gabadhiisii Tun oo dadka ka mid ah. wuu ku cararay wuxuuna qabtay garbaha. Tun, waa aniga aabbaha. gabadhii yarayd waxay ku eegtay indho qabow. yaa tahay adiga ayay tidhi. waa aniga. aabbaha ayuu Ye Shao ku celceliyey isagoo ilmaynaya. ma aqaan qofkaad tahay ayay tidhi iyadoo iska sii socota. argagax. dadkii soo laabtay xasuustoodii waa la tirtiray. tuugsadahii isha keliya lahaa ayaa isna dadka ka mid ah. markii la weydiiyey waxa dhacay wuxuu keliya ku jawaabay. meel barwaaqo ah waxaan soo aragnay meel barwaaqo. maxay tahay meel barwaaqo ay sheegayaan? maxaa ku dhacay maskaxdooda? iyo sidee ayay magaalada cirka ugu xihan tahay meel barwaaqo beenta ah? dib aan ugu laabanno albaabka magaalada Dingzhou. dadkii boqolaalka ahaa ee soo laabtay waa zombies aan xasuus lahayn. xataa tuugsadahii isha keliya lahaa wuu ku dhex jiray, laakiin markii wax la weydiiyey indhihiisu waa bannaan yihiin, dib ayuuna u cararay oo mugdiga galay. laakiin dhibaatada ugu weyn waxay haysataa gabadha ugaarsatada ah, Zin Qiyan. waxay dhex oroday dadkii soo laabtay. weji kasta way eegtay. Zin Shin, walaal, ma i maqlaysaa? jawaab ma jirto. 100 qof ayaa soo laabtay, laakiin hal qof ayaa maqan. waa walaalkeed Zin Shin. isaga keliya ayaa laga reebay kooxda. Zin Qiyan waxay kor u eegtay cirka iyadoo ilmaynaysa. waxay filaysay inay aragto magaalada cirka si ay u fuusho oo walaalkeed u soo dhiriso. laakiin naxdin. magaaladii way luntay. dib uguma laaban daruuraha, dhulkana ma joogto. hawada ayay ku dhex luntay sidii iyadoo aan weligeed jirin. hadda aan yara istaagno oo aan isla eegno xaaladda. 4 qaybood ee hore waxay inoo fureen albaab jahwareer ah. su'aalo badan ayaa taagan. ninka birta ah muxuu yahay bahalkan dadka laabta ka dila? xagguu ka yimid? Cao Jianda muxuu odaygaas u rabay inuu magaalada oo dhan biyo ku qarxiyo? ma wuxuu rabay inuu dadka laayo mise wuxuu rabay inuu wax ka weyn ka badbaadiyo? awoodda sare sidee Cao Jianda iyo ninka birta ah u awoodaan inay hawada ku ba'an? dadka soo laabtay maxaa ku dhacay maskaxdooda? ma maskaxdoodii la dirtiray mise ruuxoodii ayaa la beddelay? laakiin waxaa jira 2 sir oo cusub oo hadda soo baxay, kuwaas oo furaya wejiga labaad ee sheekada. sirta koowaad, dhaxalka qoyska Shiye. xasuusata. wiilka taajirka ah Shiye xaaskiisu waxay xaday sanduuq qaali ah si ay u siiso ninkii ay ka raacday, Gu Gongji. sanduuqaas kuma jirin lacag keliya. waxaa ku jiray dhaxal qadiimi ah oo aabbihiis iyo awowgiis soo kala dhexleen. shaygaas waxa uu yahay iyo awoodda uu leeyahay cidna ma oga, laakiin waxaa la hubaa inuu fure u yahay magaalada cirka. hadda shaygaas wuxuu ku jiraa gacanta cadowga. sirta labaad, taariikhda harada muraayadda. goobta ay magaalada cirka ku soo degto ee ah harada muraayadda ma ahan meel iska caadi ah. 100 sano ka hor meeshan waxay ahayd caasimadda boqortooyada Diyan. wakhtigaas waxaa dhacay dagaal weyn oo u dhexeeyey boqortooyada Diyan iyo boqortooyada Dayin. dagaalku wuxuu socday 7 maalmood iyo 7 habeen. akhirkiina caasimaddii oo dhan ayaa la waayey. meeshii magaalada ayay biyo galeen waxayna noqotay haro. su'aashu waxay tahay, magaalada cirka ee aan arkayno ma caasimaddii hore ee Diyan baa oo dib u soo laabatay? sheekadu halkan kuma eka. kani waa bilowga keliya. kooxda uu hogaaminayo Ye Shao, Cao Shen, Zin Qiyan iyo Shiye waa inay galaan dagaal ay ku soo furtaan walaalka maqan iyo xasuusta dadkooda. haddii halkan soo gaartay muuqaalka leeg saar ciwaanka subscribe soo dhid mahadsanid. waa inoo kulan dambe iyo qaybta xigta. nabadgeli.